wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo xiriirka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland Jaamac Biin ayaa warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si adag uga jawaabay hadallo ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Cirro oo ku saabsanaa inayna xisbi ahaan waxba kala socon degmooyinka ay xukuumadda Soomaaliland sheegtay in dib loo dhigi doono sanaaduuqda codbixiyayaasha iyadoo dadweynaha wada degana ay ku muransan yihiin dhul ahaan lixdaasi goobood dhinaca la raacin doono waxaana xukuumaddu sheegtay inay ka qabsoomi doonto deegaanadaasi cidna aanay u daba fadhiisanayn waxaana ugu baaqay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani inuu joojiyo kicinta uu ka dhex wada bulshada wada degta Soomaaliland isagoo sidoo kalena sheegay inuu yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mid ismasaxa oo aan ahayn mid hadaladiisa dib ugu fiirsada iyadoo arrinkan uu ahaa arrin laga wada tashaday xukuumad iyo xisbiyada mucaaradkaba waxaana ka mid ahaa hadallada wasiir ku-xigeenka oo halkaasi ka hadlayay sidan marka dawladdu amar soo saarto uu isaguna wax kala sheego waxaan ka maqlaynay warbaahinta oo la dhageystay axsaabtii dalkan future-kooda doonaysay xisbi ka mid ah oo wadani inay yidhaahdeen annagu waxba kama ogin go'aankaa lixda tuulooyinkaa harsanaa ee komishanka gobolladan ka tirsanaa galbeedka ee iminka la doonayo in la dhigo diiwaangelintii inuu guddoomiyahoodu ka hadloo yidhi waxba kama ogin go'aanaan isla qaadanina ma jiro go'aankaan isla qaadanina kala xadayn buu ahaa halkanaan ka caddaynaya february ayaa madaxweyne ku-xigeenka uu shiru ka ahaa guddoomiye la isugu yimi saddexda xusbi waxaa la go'aansaday inay diiwaangelin ka dhacdo si khasab uga dhacdo oo aan la xaqooda la waasin muwaadinimo ayay saddexda xusbi isla garteen waxaa lagu daray in xadayntoodiina loo xil saaro arrimaha gudaha xadayntuna keligood ma ahayn xadaynta loo xil saaray arrimaha gudaha tuulooyinkan lixdan tuuloo ku dhammeeyeen dalkoo dhan bay ahayd waxaa lagu dadaalay oo ay dadweynihii halkaa joogay aad iyo aad u ashkatoodeen inay helaan oo salaadiini ka hadasho ay yidhaahdeen waa inay doorashadu waa inay diiwaangelintu ka dhacdaa tuulooyinka galbeedka tii waxaa go'aan dambe la isugu yimi haddana in la suuro geliyo shaqo waxaa saame waa jiraan laakiin xaqa muwaadinka waa dastuuri haddii uu qofku haddii iminka inankaagu qof ilaa gurigay mas-uuliyaddu taallaa mas-uuliyaddan qaranka ilaa iyo guriga gudihiisay taallaan ninna inankiisa markuu karbaashayo ee uu dilayo uma maago xumaan uma maago wuxuu leeyahay wax xusuuso oo dadka waxaad la gasho iyo go'aankaad la gasho dib ha uga hadlin taa waan kugula talinaya dadweynahan waxaan u sheegaynaa doorashada iyo dadnimadu waxay ku jirtaa maanta haddii la dhaafo deegaamada lixda ah cabashadoodu qarankoodu imanaysa haddii ay galaanna muwaadiniin waajibkoodii fuliyey annana waxaan gudanaynaa xilkayagii dastuuriga ahaa ee wasaaradda komishinkuna waxay gudanayaan xilkoodii dastuuriga ahaa ee waajibaadkii saaraa sidaa la ajligeed saxaafadda waxaan ku hambalyeynaya ka soo qayb galeen waana idin mahadnaqayaa cid walibana waxaan uga degaynaa ninkii hadlayo arrimaha qaarkood lagama hadlo waxaa u wanaagsan wixii aad ka leedahay inaad bal horta ka fiirsato nabadgelyadu waa waxyaabaha ugu dana ninna uga dulqaadan mayno kana aamusmayno si kastaba haatee deegaanadan ay sheegtay xukuumadda Soomaaliland inay ka bilaabayso diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa soo noqnoqday muranka ku saabsan dhul ahaan dhinaca ay raacayaan iyadoo welina lagu muransan yahay hase haatee ay xukuumadda Soomaaliland ku adkaysanayso inay ka qabanayso diiwaangelinta codbixiyayaasha Khaalid Farax Kalson TV Hargeysa.